madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo habeenkii xalay ahaa uu hiday magaalo xebeedda Berbera iyo Saaka waxa uu socdaal indhayn ku soo maray goobo ay ka mid tahay dekedda magaalada Berbera, cusbitaalka guud, librariga casriga ah ee hirgelisay dowladda hoose ee degmada Berbera. xaaladda caafimaadka dalka madaxweyne waa ka wada dhareegsanahay oo wali ma gaarin halkii aynu la rabnay adeegeena caafimaad inuu gaaro. wali waxaa jira gaabo badan baa jira oo dalkoo dhan ka jira, Berberna dalkoo dhan bay la wadaagtaa. waxaa kaloo jira fursado Berbera ay dheer tahay meelaha kale sida mashruuca laga dhawaajiyay ee DP Wall oo kale. sidoo kale waxaan ognahay wasaaradda horumarinta caafimaadka in isbedel maamul ka dhacay oo wasiirkii ku-xigeenka DG-giiba ay cusub yihiin. Study baanu wadnaa mashaariicdaas oo dhan sidii looga faa'iideysan lahaa sida ugu habboon ee aan waxba inooga beerdaroobi lahayn. waxaa kaloo aanu study ku wadnaa gobolada qaar sidii Berbera oo kale waa ku ammaanaya kaalinta guddidu kaga jirto adeega caafimaadka. qaybta caafimaadka waxbarasho lagu tijaabiyay 3 degmo ka mid tahay Berbera ka mid tahay runtii ay si effective runtiga wax ku uga shaqaysiiyeen runtii oo mas'uuliyadda hadhow kulli ku soo socotay ay adeegyada hoose asaasiga la wareegaan dowladda hoose mustaqbalka loona diyaarinayo loona tababarayo inay adeegyada maartay dugsiyada hoose dhexe caafimaadka biyaha waxaasoo dhan wax noqon waxyaabaha maamulka digital Soomaaliland samaysatay oo mid ay noocaas siyaasadda noocaas aan dejino samaysanaya oo ay adeeg loo dhaweeyo dadka loo dhaweeyaa waxay isu bedeshay containers inta badan shaqaalihina capacity-giisa waa la kordhiyay alxamdulillah rabbil caalamiin shaqadu si degdeg ah ay noogu socotaa oo wanaagsan wax problem ma jiro waxaan rajaynaynaa bisha shanaad inay yimaadaan mobile clinics-kii waaweynaa maadaama xilligaas ay bilaamayso xilligii dabayshu oo caqabad badan ay jiri jirtay laakiin imika waxaan rajaynaynaa insha Allah wax walba inay si caadiya ay u socdaan. geesta kalena waxa uu madaxweynuhu socdaal ugu kictimay deegaanka Laaskumarle ee ka tirsan gobolka Saaxil halkaas oo shirkadda DP World ay ka hirgelinaysay 5 ceelbiyood oo ay ku talagashay inay ku soo darsoomaan ama lagu biiriyo systemka biyaha magaalada Berbera. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana madaxweynaha faahfaahin ka siiyay maryaha wakaaladda biyaha ee Berbera, wasiirka wasaaradda biyaha. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland. dadku aad waxay u hadlayaan oo aan halkan ka cadeynaya madaxweyne ku-xigeenkiina way dhinac taagay biyohan waa biyo ay leedahay magaalada Berbera, waa biyo ay leeyihiin wakaaladda biyaha ee Berbera. cid alla qof bilaadan oo private ah iyo qof bilaadan oo wax ku leh ma jiro. dad baa telefishinada ka qaylinayay, dad baa lahaa ujeedooyin gaar ah lagu leeyahay. cid madaxweyne ku-xigeenkii way ag taagan yahay oo dalka xukuma anigoo wasiirkiiya maareeyihii waa kaa biyaha waxaa la Berbera matoor hadday tahay iyo hadday qalab tahay iyo hadday agab tahay iyo hadday ceel loo qodo tahay Berberaana biyaha ka cabaysa iyadaana maamulanaysa. tii systemkan lagu soo diro imika midna madaxweyne waxay Berbera ka bedelayaan 100% wax badan ka bedelayaan baahida taala imika waayo waxaanu soo saarnay iyo wax loo baahan yahay kala badan. sida loo socono magaaladu way isbedeshay oo dadkii waa bateen systemkii hore ee biyaha loo dhigayna wax badan laga bedelin. waxa laga yaabaa in yar suuqa waa jiraan meel beeb la galgalay laakiin systemkii waa systemkii hore ee 100 sano ka hor la dhigay runtii. waxaan rajaynayaa madaxweyne anigoo og in dawladdu ku ballan qaaday shaqooyinkooda koowaad ay noqonayso inay biyo ballaarin samayso. gabagabadii waxaa isagoo hadalka soo amiray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. biyuhu culayska ay leeyihiin ninka garanaya buu garanayaa. waxa meesha yaala ummadeenu inay iska dhaadhiciso shayga la yiraahdo biyo is sheega kartaa ma jirto waa nimco Ilaahay dadka siiyay. wixii nimcada noocaasana in kolkii wax kor loo qaado in la qaylo maahine way wax la isweydiiyo ma meesha taala hadii qofku talada ama haduu hal talaabo qaban lahaa yar garam ro biyaan banahay waxa meesha yaala wax la isweydiiyo ba taale laakiin waxa la yaabay mashruuca intan leeg halka yaala iyo wax muran galin karayo dad shakhsiyaad baa yeelan kara sababta loogu asteeyay wasiir ka bay weydiiyay bayruun deegaanka kaalmisa magaalada horta aad baa oo dhaxay waxa deegaanka yeelan kana halka meel mashruuca inta leeg maageynta leeg deegaanka yeelan kana. Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suub, telefishinka caalamiga Soomaali Cable, Berbera.